السلام عليكم وأنا سلام يا أصحابتينا كحيران بوله shop meel kasta joogtiin soo dhawaada iska baro daawooyinkan waxaa waaye waxay u fiican yihiin H pylori ay daaweeyaan H pylori dad badan ayaa noo soo laabtay oo ka cabanaya markaas waxaan go'aansaday inaan keeno sa u jeedin waa dhir waxaa laga sameeyay maxaa la dhahaa geedkaas meesha ku yaalo H pylori waa infection ku dhaca caloosha marka horeyso gaas ayuu ka bilowdaa marka dambena wuu weynaadaa wuxuu noqdaa H pylori soo barteen ogaatin haddaba aad ay risk u noqday Soomaaliyeed because waxa la isku bedelaa cancer waqti dheer haduu ku haayo iska daba gaarayn dhihi lahaa waxyaalaha H pylori lagu garto waxa weeye qofka waxa la dhahay dad markay cuntada soo cunaan caloosha ayaa fuurta mindhicirka ayaa laga qabtaa qaarkood waxay dareemaan labo qaar appetite-ka ayaa ka taga calool xanuun calool istaag caloosha arkaysa qofku dhahay almost 3 week ama 2 week musqul ma galin qaar waxay ku dhahayaan mindhicirka ay xanuunayo qaar way caatoon qofkan inta laga haysto oo laf leeyahay maanta oo dhan cunto uu cunaa la isdhahaya H pylori ayaa hayso H pylori aad ayuu weyn yahay laguma soo koobi karo waa cashir oo weyn waxaan dhihi lahaa soo dooda dhirtaan daawooyinkan leeniga hubo inaga caawinayo ama inaga dhameenayo hadda gabar ayaan siinaynaa dadka way kala yihiin dhahnay qaar basi qaarna waqti dheer ayuu ku noqday ka weyn ayaan siinaa qaarna oo qofka hadda cusubna ka yar ayaa la siiyaa marka ogaada cancer waqti waxa waaye waa cudur xun ilaahay baan ka magan galnay laakiin waxa lahay infection kaas haduu ku weynaado gaaskaas uu gaaskii weynaado ayuu H pylori isku bedelay marka iska gaaran ilaha Soomaali inta badan 80% ama 90 way qabaan intaas way noo imaanayaan wayna waxaan walaali macaan daawo u baahanahay waana dir wax leeniga hoowaye waxaan dhahayaa xaba is eelina imaada boola shop